ciidan qaabeeleed u abaabulan ayaa doornimadii maanta waxay la wareegeen degmada Hobyo ee gobolka Mudug halkaas oo la sheegay in markii hore ciidamo ka tirsan militariga qaybta 12aad ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku sugnaayeen ciidankan qaybta 12aad ayaa waxay isaga bixeen halkaas amar kaga soo baxay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyrre waxaana kadib halkaas la wareegay maleeshiyaad qaabeeleed iyagu abaabulnaa beelaha Saleebaan iyo waliba Sacad ayaana ciidan ku abtirsada wax la sheegay in ay amniga la wareegeen degmada Hobyo ilaa haddana ay sugayaan Sacad looma sheegi karo sababta keentay in ciidankaas amarka ra'iisul wasaaraha uu soo siiyay isaga soo baxaan waxaana ay wateen 3 baabuur oo nooca dagaalka ah lama oga xaalka sida uu noqon doono xilli degmada Hobyo uu maalintii labaad galay shirka beelaha Habargidir ay kaga arrinsanayaan yoolkooda iyo waliba doorka ay ku leeyihiin siyaasadda dalka waxaana wajiga labaad uu noqonayaa shirkan shalay ka furmay magaalada Hobyo qawaamuurta siyaasadeed aqoon-yahano culimaadudiin waxgarad iyo waliba qaybaha kala duwan ee mas'uuliyiinta dawladda ugu jira beelaha Habargidir ayaana shirkaas inta badan xaadiray waxaana laga rajo qabaa in qodobo wax ku ool ah ay ka soo baxaan